kuwani waa qisooyin walaalayaal la dhihi karo dadka caqligooda way ka yaabsadeen aduguna walla yaabi doontaa fadligan inta uu leeg yahay ilaahay ku khaas yeelay aayatul kursi iyo dadka la saaxiiba waa qisooyin ku saabsan aayatul kursi iyo manfacada laga helay dardaarankeenu waxa weeye oo naftayda iyo tiinaan siinayo ha ka teginina oo ha moognaanina aayadan aayatul kursi leeyahay waxaana halka idinku soo gudbinaynaa dhowr qiso oo ku saabsan aayatul kursi qisooyinkaas oo tusaya sida fadligeedu u ballaaran yahay oo u gudawan yahay faa'iidooyinka ku jira aayatul kursi oo kuwa adduunka aakhira aad helaysid ninkii la oran jiray Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu ayaa wuxuu yiri waxa asiibo igu dhacay xanuun aad iyo aad u daran oo dhaqaatiirtii ay ka noogeen oo ay kari waayeen daawadiisii habeenada ka mid ah ayaa xanuunkii ugu siyaaday kadibna waxaan go'aansaday buu yiri wal wax ka mid ah quraanka inaan isku akhriyo si ilaahay caafimaadii siiyo aayatul kursi baan akhriyay buu yiri kadib baan isku masaxo ismarmariyay kadib baan iska seexday buu yiri hurdada dhexdeedaan riyo ku arkay riyadaas maxay leedahay wuxuu yiri laba nin baa ii imaaday hortayday istaageen labadoodii baa su'aal isweydiinaya mid baa kii kale wuxuu ku yiri ninkan halkan hurda wuxuu akhriyay aayad ay ku jirto 365 naxariis ilaahay haddana hal naxariis oo 360 ka mid ah ayuu helay oo asiibtay hurdadan ka soo toosay wiir markiiba kadibna waxaan dareemay in xanuunkii iyo qandhadii ay iga tagtay oo aan caafimaaday Allahu akbar wuxuu leeyahay 365 naxariis ayaa ku jirta aayadan hal naxariis buu helay oo tiradaas ka mid ah كوران إن بدن هدو هيلي لها ما شاء الله وقصة عجيبة قصة كلا لو وريو لين يرادا أبو بكر من نوح أيوحو كوري آبيهيس إن آبيهيس ويري نوح نكال يرادو وحاتري جريبو إن أنو صاحباهين أو دكان له دكان كيساس آية الكرسي وهمين كستكو آخرين جري مركو صوح ريو هبين هذا كم إذا أيوه المامي كدب نوح صوح حصوص مركو قريقي وتقي هل كاسو كسو آخرية آية الكرسي dhinaca dukaankiisa uu ka jirana waa uu soo ishaaray gacanta kadibna uu iska seexday waaga markuu bayay oo subaxii la gaaray ayuu dukaanka soo aaday kadib uu furay markaas wuxuu arkay alaabtii dukaanka taalay oo inta la soo ururiyay dukaanka dhexdiisa la soo dhoobay iyo nin ku dul fadhiya halkaas ninkii buu weydiiyay yiro dukaankayga maxaa ku soo galiyay miyaad jabsatay dukaanka maxaad halka ka samaynaysaa ninkii baa wuxuu yiri maya ha qaylin xoolahaadi waxba ma qaadan laakiin markii hore waxaan u imid buu yiri inaan dukaanka xado oo alaabta urursado markaan dukaanka soo galay alaabtii aan isku soo urursaday oo aan dabcaynaan la tago la baxo albaabkii baan garan waayay baan ka soo galay oo aan jabiyay albaabkii baan haleeli kari waayay meel uga jiraba waa arki waayay dirbi baa meel kasta iga xigay wiir alaabtina waa tanaa wiir meesha dhooban alaabtii baan iska dhigay bal kaliya badbaado bax baan isiri ayadana way suurta gali weydii wiir albaabkii meeshuu ahaaba wuxuu noqday dirbi adag oo aan dhaafi karin marka halkaan iska fariistay wiir marka adigu ilaa albaabka furtay nin iyo wada doonaysay si kay cafi أنا واتوبت كيناي توجنمدينا واسكداي واسكعفيه مركا إلهي نو مهد عليه نكاس آية الكرسي إن إلهي وحفظيه آية الكرسي وسوا أخريه إن توجن إلهي تكان كلاب تسينو قاطو إنه ربي وحفظيه ما شاء الله نكرا الصالحة يا وحليه هي خريا وحنكو أركي إن قيامه ودعي ضد كان الله سو يستاتي حساب مكاني قال لك كان يصير لي حسابيه وقال لي حسابي بالحساب يرفضه حاجة كان هذا ليك حي سلاسن كل رياضي بيري kadibna guriyay daaro waaweyn ayaan arkay oo quruxdooda aan la yaabay markaas waxa leeyahay yiri daartan iyo guriyahan albaabadooda tiri waan tiriyay yiri waxaan ka helay yiri in albaabadu ay yihiin 50 albaab inay daartan leedahay markaas waxa leeyahay yiri daartan imisa qolbe ka kooban tahay bal fiiri waan tiriyay yiri markaas waxaan arkay inay tahay 175 markaas waxa leeyahay yiri run baad sheegtay waa sidaas markay halka riyadaydu marayso ayaan farax daraadiis iyo faraxo iga batay ayaan hurdadii ka kacay oo booday alxamdulillaah baan iri waagu markuu ii bariyay ayaa waxaan aaday biri caalimkii la oran jiray oo taabici ah Muhammad ibn Sirin oo lagu yaqaanay riyooyinka inuu fasiro qisadii iyo riyaday qabsataan u sheegay markaas wuxuu yiri waxa laga yaabaa inaad badisid aayatul kursi akhrinteeda haabaan ku iri oo aad baan u badiyay akhrinteeda sideed ku garatay arrintaas markaas wuxuu ugu yiri buu yiri aayadan waxay ka kooban tahay 50 kelmadood iyo 175 xaraf markaasna la yaabay ninkan xifdigiisa iyo aqligiisa iyo maskaxdu leeyahay ee ku dhisan xasuusta marka waa abaal markaadii guryuhu waxay ka kooban yihiin qolalkooda 175 qol waa xarfihii aayadan albaabaduna waa 50 albaab way waa kelmadaha aayadan ka koobnay kadib wuxuu ugu yiri qofka badiya aayatul kursi ilaahay wuxuu u fududeeyaa sakaratul mawt sida waxa dhahaya Muhammad ibn Sirin oo ninkaas ayuu ku yiri
raxmatullaahi caleyh. waxaana ogtihiin oo in badanoo adinka ka mid a ay maqleen in nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofka akhriya aayatul kursi salaad kastoo waajiba gadaasheed, yacni salaada waajibka markaad tukatid haddaad akhrisid aayatul kursi jannada waxaa kaa hortaagan oo keliya inaad dhimatid. haddaad dhimatid jannada hore ka gelaysaa. qofka daa'ima aayatul kursi waa qof wanaagsan oo runlow ah oo caabid ah. qofka akhriya habeenkii markuu seexanayo ilaahay naftiisa meel ammaanu u dhigaa. deriskiisa ammaan baa la siiyaa, deriskiisa ammaan baa la siiyaa, iyo guryaha ku xeeran oo dhan xumaantu ilaahay ka ilaalinayaa tabaaraka wa tacaala. maasha allah. sidaa darteed waxaa la yidhahdaa aayatul kursi qofka akhriya oo meel ku akhriya ama guri ku akhriya, gurigaas ama meeshaas shaydaanku waa ka fogaanayaa 3 maalmood. 30 maalmood haddaad akhrisidna shaydaan waa kaa fogaanayaa, gurigaada waa ka fogaanayaa, meeshaad degantahay waa ka fogaanayaa. 40 maalmood kaa soo agdhowaan mayo, waa kaa cararaya. gaashaan baa haysataa, difaac baa haysataa. aayad cajiibo mucjisaa weeye. qisaskan qiimaha badan markaan akhriyo oo arkay naftaydu ay dareentay. adinkana insha allahu tacaala waxaan go'aansaday inaan idinla wadaago. baaraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.